dhalinyarada Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed khayr Allah siiyo waa u duceynaya waliba waa inay ka feejignaadaan kana fogaadaan guurka ajnabiga walow ay tahay naag muslimna ma arti maxaa waayo wax kasta dhici kara haddii reer ku burburo ilmihii hooyaa iska leh hooyay raacayaan dib dambena mataqaanaa maartay loo arki maayo mataqaanaa maartay maxaa caqabadaana ka hor imaanaya qofkaas anigu ma oran karo boqolkiiba boqol waa isku mid laakiinse mataqaanaa 0.001 arrintaas mataqaanaa maartay laga yaabo maartay inay ka duwan tahay laakiin sida majority boqolkiiba 99 carruurtii reer hooyay raacayaan maartay aabana carruurtii mataqaanaa maartay uu luusgareyn doona maartay hadda waxaad ku nooshahay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska Koonfur Afrika ayaa timid oo arrimo family ayaad u timid marka waxaad aragtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed gabdha iyo wiilalba guursaday dad ajaanib ah marka ubadkooda halkee bay ku dambeyn doonaan ayaad leedahay su'aal wanaagsan ilmaha noocaas inagu Soomaali baanu nahay saraxadii ma arti muxuu ahay shacbiga Soomaaliyeed waa shacbi waa hal family waa ummad mataqan waa shacbi ma arti midabka iyo diinta iyo dhaqanka iyo afka iyo mataqaanaa maartay muxuu ahay deegaanka maartay wadaaga waa shacbi mataqaanaa shantii qoys bal laba ama saddex mataqaanaa sida anigu aan filayo maartay muxuu ahay intuition iyo maartay muxuu ahay qaraaba hase yeeshee mataqaanaa maartay waa shacbi waxaanu nahay ummad aan weli xuub siibanin waasha balan baalista waxay ka timaadaa deerdeerta way xuub siibato mataqaanaa waxa la yiraahdo metamorphosis weli inaku mataqaanaa maartay ma xuub siibanin meel kastoo tagna waxa laga yaabaa mataqaanaa midabkeeda inaan qaadano sida awgeed waxa loo baahan yahay mujtamaca mataqaanaa meel kasta uu jiro uu u tago waa inuu waaqic noqdaa kuna faanaa aaminaana mataqaanaa maartay dhaqankooda maartay oo ay ka feejignaadaan guurka ajnabiga ubadka ayay saameynaysaa oo saameyn kartaa mustaqbal ahaanna waxay ka fogaan doonaan maartay dhaqankii iyo diintii iyo afkii bay ka fogaan doonaan maartay waxa goorma ay kugu dhalatay inaad qurbaha ka soo noqoto oo wadankii Soomaaliya aad ku soo noqoto maxaa sababay imaashiyahadii Soomaaliya inaad ku soo noqoto good question khayr Allah ku siiyo horta haddaan runta ka sheegay guurkaygi gabadhii ii dhexday gabar wanaagsan bay iyadoo dambi ma lahayn yani mataqaanaa weligaana iskumaana dhicin waana caddayn doonaa hase yeeshee waxaa sababay inaan Soomaaliya ku soo noqdo waxay ahayd marka soo noqoshadaydii mataqaanaa maartay sodog iyo sododay ay weelahayn eega betra la oran jiray 90 kilomitir rajin noo jiray mataqaanaa deganaayeen sabti kasta oo dul taagnaan jireen haddaan dhaano war maxaa mataqaanaa waana shaqaysanay maxaa dhacay maartay isku dhibaysan waxay dhigi jireen carruur kale ma lihin eega xariga laga furi jiray waadan intaana maartay diinta mataqaanaa anigu aan maartay liiliga qabsan kama qaloon jirin eega hase yeeshee markii ilaahay toobada ii waafajiyey yanaakii waxaan ku yidhi walaalay waalidka marna nadayn maayaane markay noo yimaadaan xarigayaan eyga laga furin taas ayaa koos dhalisay maartay muxuu ahay caburiskii iyo jawigii mataqaanaa maartay isbedelkiisii taasaa eygaasa igu khasbay inaan mataqaanaa maartay dalkayga ku noqdo carruurtaydana badbaadiyo mataqaanaa